weli mis weydiisay waa kii xiddiga lagu galay qaladka ugu badan shanta horyaal ee ugu sareysa qaaradda Yurub. xiddig garabka u ciyaara kooxda Barcelona Lamine Yamal ayaa lagu sameeyay qaladaad ka badan ciyaartoy kasta oo ka ciyaara shanta horyaal ee ugu saameynta badan Yurub xilli ciyaareedkan. sida sheegtay ESPN, Lamine waxaa si arxan darro u raaca daafacyada ka soo horjeeda kuwa mararka qaar halis galiya lugihiisa. waxaa loo diiwaangeliyey in lagu sameeyay 38 qalad oo waaweyn bilowga xilli ciyaareedkan, waa in ka badan ciyaartoy kasta oo ciyaara waqtigan. tan waxay imaanaysaa iyadoo 17 sano jirkan lagu qasbay inuu ka baxo xulka Luis de la Fuente ee La Roja sabab la xiriir dhaawac ka soo gaaray kulankii gool ee warkaadka Denmark. Lamine waxa la xaqiijiyay inuusan ka qayb gali doono ciyaarta habeen dambe xulkiisa Spain wajahaya Serbia. Yamal waa ciyaaraanka lagu gala qaladka ugu badan ee kooxdiisa, wadankiisa iyo xitaa shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub xilli ciyaareedkan. daayirkan waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu wanaagsan qaaradda Yurub haddii aan lahayn dhinac walba.